Soomaalideni hadday wada siinaatay Soomaalideni hadday ay siinaatay isu samafalkeeduna wadani hooseeto isu samafalkeeduna wadani hooseeto nin lagu seexdo waseexan ilbaatida waseexan nin lagu seexdo waseexan haseexan haseexan soo jeedo si weyn u feejiro Soomaalidii midowdo saxarkii baxayo samaatay Soomaalidii midowdo saxarkii baxayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. asxaabteeda ku xiran AK Production waa islaamay waa saaxiibkiin AK. maanta waxaan ku soo qaadanaynaa fiidiyowgeenan ama barnaamijkeennii qaybtiisa 13aad. maanta waxaan ku soo qaadanaynaa wadada Bintu Une October ayaan muuqaal idinkaga soo sameeyay. sidoo kale dabaqan Inzo Home ku qoran tahay ayaan asagana muuqaal nooga soo sameeyay saaxiibayaal. marka maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno wadadan muuqaalkeeda sida u samaysan tahay iyo dabaqan inaan muuqaal ka soo duubo. muhiimadda muuqaalkan aan maanta soo duubayo waa dabaqan inaan idin tuso sida uu dhisan yahay qaabkaas inaan soo marka channel subscribe saar sida u jeedeen shaashada in soo fuushay subscribe saar saaxiibayaal. okay hadda muuqaalka wax yar kadib ayuu noo soo bilaaban doonaa dhinaca school police ayaan ka soo bilaabay. marka wax yar kadib waxaan noo bilaabanaya muuqaalkeeni marka sida u jeedaan dabaqan wax yar ku aadiyay saaxiibayaal. marka wadadan hadda dhinaca lambar 4 u socota laakiin waxaan rabaa inaan gadaal ka soo bilaabo oo bilowga hore inaan idin bilaabo insha Allah. channelka subscribe saara videoga like saara waa arkay sida channelka ugu xirantiin. okay marka halkan waa meesha ay ka bilaabanayso wadada wadadan Bintu Une October meeshan kama bilaabato laakiin dhinacaas kale kama soo duubin. marka dhinaca oo afisyooni marka laga imaado ayaan ka soo duubay. marka saaxiibayaal halkan aad u jeedin waa wadada Bintu Une October. wadadan si u socoto ayada ayaa dabaqi haday ay tusayay muuqaalka bilowgiisa ee Inzo Home ayada hormaraysa. marka sidaas darteed ayaa rabaa muuqaalka sidaas inta u wado inaan dabaqa hormarno. waxaan ka raaligelinaa in yacni kaamirada mootada ay muraayada ka jaban shaashada dhiiro muraayada inay ka jaban tahay kulli in aragtaan u maleynaa wadada iyo wax dhan aragtaan u maleynaa laakiin ani mooto wadada iska maraysa iska kriistay markaas muraayad ma fiirneynbo. marka dib malahan hadda wadada waxaan rajeynayaa in aragtaan wadada waa iska clear maasha Allah. wadadana waa wadooyinkii hore xilliyadii 70meeyadii ka hor ay dhisnaan jirtay. macnaha waxa laga yaabaa wadooyinkan hadda aragtaan inay ka facweyntaa laga yaabaa. wadadan Bintu Une October dadkii hore ayaa aad iyo aad u yaqaana odayaashii hore xilliyadii Siyaad Barre ka sii hor xataa Siyaad Barre aan dhahay yani xilliyadaas Siyaad Barre wadadan wadooyinka xamar ugu weyn ama ka mid ahayd ma sheegi karin laakiin saas ila tahay. qaybta commentiga ku soo qoro haddii wadadan ay ka mid tahay wadooyinka ugu waaweyn oo xamar waa hore jirtay wadadan. marka kulli Bintu Une October wax lagu bixiyo u maleynaa dadkii hore macnaha maadaama Talyaani wadankan sida ogtiin Talyaani ayaa marka hore guumeysan jiray dhulka koonfurta dhan Talyaani ayaa haysan jiray. marka Bintu Une waxa laga wada u maleynaa Talyaani inay tahay u maleynaa. marka asxaabtu waxyaabahaas idinka iga dheereeyo ma fahanteen idinka iga dheereeyo waxyaabahaas ma ka hadli kari taariikhda iyo waxyaabahaas idinka maartay ku dheereeyo qaybta commentiga ay idinka rajeynaa inaad ku soo gashaan commentiyadiina iyo sida channelka ugu xirantiin waa arkaa badanaa aad iyo aad u mahadsantiin. meelaha badan oo leedin soo duuba dadka qaar oo real estate meelo qaar ay tilmaamaya soo duub dhahay iyo dadka qaar oo qofba meel uu leeyahay soo duub dadku waxay rabaan wadankooda inay arkaan wadankooda jecel yihiin. marka waa arkay kulligeen commentiyadiina waa wada arkay. marka saaxiibayaal wixii oo markaas aniga ii saamixi kara yani meesha waxaan tagi karo meesha markaa tagayso xataa qarash kugu baxaya marka wixii aan qaban karo ma fahanteen meesha aan markaas aan waqtigeeda iyo kostigeeda waxyaabo badan ayaa jira ma fahanteen oo markii meel la aadayo u baahan. marka waxyaabahaas markii meesha aan buuxin karo ayaan soo duubaa ma fahanteen laakiin waxaan rajeynayaa meel badan inaan duubi doono haddii marka saaxiibayaal waxaan idinka rajeynayaa idinka inay igu dhiirigelisaan oo like-ta aad iyo like u saara sababtoo like markaas sarti muuqaalka YouTube algorithm ku sameeyna uu si share gareynaa ma fahanteen. subscribe waxa ka muhiimsan xataa like-ta wayaan. marka dabaqa halkan ku yaala saaxiibayaal meeshaan ayuu ku yaalaa
meeshaan wallaahi 2017 meelaha 15 xasuus ay ugu leedahay beenteen markasta soo mari jiray marka saaxiibayaal halkan ayuu dabaqan ku yaalaa meel biyo-degeen way tahay laakiin dabaqu waa kala kacsan yahay beenteen biyo-degeen iska aad markuu roob da'o xataa saas iska noqota laakiinse waa meel dee dabaqa kala kacsan beenteen marka dabaqaasaan jeclaysta maanta lo'dan waa in salaamaysa u jeedin wadada lo'da joogta lo'da wadanka ay leedahay beenteen intee aadaya macnaha wadanka ay leedahay caasimada ma ayada iska leh marka saaxiibayaal intaasna kaftan waayaan hadda waxaa marka rabaa inaan maxaan soo gaarnay meesha arabni maadaama aan soo gaarnay kamerada dhinacan kale soo jeedinaa waa ujeedin dabaqaan waay marka muhiimadda muuqaalka waa dabaqaan saaxiibayaal marka asxaabta muhiimadda muuqaalka waa dabaqaan dabaqaana dee kolley waa ujeedin waa dabaq aad iyo aad insan waa maalnaa qaybta hore waxaa loo dhisay si aan caadi ahayn fahanteen qaybtan hore maarta wadada saaran si caadi ah loo dhisay kolley maaqa youtube-yada iyo meelahaas inaad ka aragteen laga yaabaa ama tiktok-ka dad iska duuduubaya meelahan marka muuqaal dhammaystiran idinkaga soo la jeclaysin idinkaga soo duubo wadadana waan soo duubay wadadan dhinaca lambar 4 mar aan soo maraya ma duubin laakiin dhinaca kale ka soo duubay muuqaalada xigana waxaan rajeynayaa inaan meel kale soo duubo sida wadada Sodonka wadada warshadaha iyo wadadan kale oo aad iyo aad waxa xiiseynaa dhinaca Xamarweyne bundooyinka inaan soo duuba xiiseynayaa marka meelo badan waan soo duubaa saaxiibayaal wixii markaas aan awoodo maarta aan soo duubaa idinkan ugu xirnaada ugu dhiirigeliya like shaarta halkan wadada lambar 4 ka gali waa wadada ilaa hadda aan saaranahay wadada Bintuun October wadadan aad ay u dheertahay ilaa ay waxay tagtaa dekada ay martaa Bintuun gadaal halkaas Xamarweyne halkaas ka baxdaa wadada aad u dheer weeyaan marka dad ahtaa aan la sheekaysta xataa waxay sheegeen in xilliyada hore la isticmaali jiray wadadan oo ahayd wadada aad iyo aad u caansan xilligaas wadooyinka kale hadda dadka oo aadka loo dhisay ee ka magac weynta la ii sheegay marka idinkan waxaan rajeynayaa taariikh wixii ka hayay inaa wadadan aad taariikhdii ku soo xustaan marka aad u mahadsantihiin halkan marka lambar 4 ay ka galaysaa ilaa lambar 4 ayaan ku geeyay kulli hadii oo lambar 4 muuqaalo ku saabsan ay rabtidna channelkayga ku jiraan hadda hore soo daawanin qaybta commentiga hore aan kugu soo bin gareynaa meeshaas ay ka raacaysaa marka halkan u jeedin waa kaas dabaqaas ay rabaan hadda dabaqadan hadda waa hore dhisnaayeen laakiin dabaqadan weligeed inta xamar joogay way dhisnaayeen dabaqadan ma qaan xilil isma sheekir laakiin kulli waqti dheer waa dhisnaayeen kuwa laakiin kulli waa travel agency iyo waxyaabo noocaas oo fahanteen diyaaradaha meel laga jarto tigidhada oo aad iyo maasantiin hadda argadii ay maanay argadan dadka qaar waxay dheen Talyaaniga dhisay miya ma qaan xog gooni kama hayo marka aad iyo maasantiin saaxiibayaal halkan ay ku iga muuqaalkeen lambar 4 ay maanay saaxiibkiin ee keedan dhahay channelka subscribe saara videogana like saara dhiirgelintiina ayaa rabnaa inaan meel ku gaarno marka saaxiibayaal waa mahadsantihiin sidaas iyo mac salaama